wadooyinka iyo qadadka tareenada hase yeeshee qorshe lagu doonayay in lagu ballaariyo maamulka caasimada oo la gaarsiiyey qaybo ka mid ah gobolka Oromia ayaa waxa ka dhashay dibadbaxyo ay sameeyeen arday horaantii sanadkan. Gobolka Oromia waxa uu yahay gobolka ugu ballaaran dalka Itoobiya waxa uuna gobolka gabi ahaan ku hareeraysan yahay caasimada. qaar ka mid ah bulshooyinka degan gobolka ayaa waxay dareemayaan in ballaarinta caasimada Addis Ababa ay horseedi karto in ay lumiyaan dhulkii ay lahaayeen. magaalada Amba waxa ay ka mid ahayd meelaha ay ka dhaceen dibadbaxyada oo ay dawladdu sheegtay in ay ku dhinteen 17 qof inkastoo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay sheegayaan in tirada intaasi ay ka badan karto. wariyaha BBC-da ee Addis Ababa Emmanuel Gunza ayaa ka waramay waxa soo jeedinaya Maxamed Ali. halkani waa magaalada Ambo oo 120 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan magaalada madaxda Ethiopia ee Addis Ababa. waa halkii ay ka dhaceen dibadbaxyada dadkana lagu toogtay 23 bishii April. maanta jawiga halkani waa mid farxad ah. arday jaamacad ka qalin jabinaysa ayaa sawirro ku qaadanaya albaabka hore, balse jawigu 3 bilood ka hor waxa uu ahaa mid aad uga duwan sida tan. halkani ayay ahayd meesha ay boolisku kula kulmeen dibadbaxayaasha oo qaar ka mid ahna la toogtay. wadooyinkana waxaa buuxay dhiig. haweenaydan aad ayay u baqaysaa oo ma doonayso inay magaceeda sheegto. waxay sharaxaysaa wixii dhacay maalinta iyada ah markii wiilkeeda la dilay. waxaan u oynayay dhalinyarada kale ee dhimatay maalintaasi. waxaa jira 5 kale oo madaxa laga toogtay. markaan tagnay isbitaalka goobtii la dhigi jiray meydka ayaan waxaan arkay dharkiisii iyo kabihiisii. waxaana ogaaday in wiilkayga uu yahay. waxaan ku adkaystay in meydka guriga la ii geeyo. guriga ayaan geeyay meydka wiilkayga. ma cadda tirada rasmiga ah ee dadka halkaasi lagu dilay. dadka deegaanka waxay sheegayaan tiro ka gedisan tan ay boolisku sheegeen. dawladdu waxay sheegaysaa inaanay iyadu mas'uul ka ahayn rabshadaha halkaasi ka dhacay. Rodon Hussein waa wasiirka warfaafinta Ethiopia. The government was ready to discuss and it was trying its best. dawladdu waxay diyaar u ahayd wada hadal. waa ayna samaysay intii karaankeeda ah. marka aan ka hadalno dadkii la laayay waxa sabab arintaasi u ahaa kuwa qaswadayaal ah balse ma ahayn dawladda. dadkaasi toogasho ayay sameynayeen, qoryo ayay haysteen iyo rasaas. weerarna waa ay soo qaadayeen iyo dagaal. marka ma ahayn toogasho ay dawladda samaysay ama booliska oo ay ku dhinteen dadkaasi. It was not through the government shooting or the police shooting that people were dying. balse hay'adaha caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in boolisku ay toogteen qaar ka mid ah dibadbaxayaasha kuwaas oo aan hubaysnayn. magaalada Addis Ababa waa mid si dhaqso ah u kobcayso. tirada dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa 3.5 milyan oo qof, waxaana la filayaa in tiradaasi ay gaarto 5 milyan 5 sano soo socota. tirada dadka ay sii kordhaysa waxay culays ku keentay kaabayaasha dhaqaalaha. marka dawladdu ayaa waxay bilowday mashaariic lagu dhisayo wadooyin iyo khadadka tareenada ee caasimada iyo deegaanada ku dhow. dibadbaxyadii dhacay bishii April ee dadka lagu laayay waxay ka dhasheen qorshaha dawladda ee lagu ballaarinayo caasimada. qorshahaas oo loo baxshay master plan waxaana looga gol leeyahay in adeegyada lagu gaarsiiyo dadka ku nool tuulooyinka iyo meelaha ka fog caasimadaha. Matthews Asfo waa maarayaha qorshaha. waxa uu sheegayaa in dadka mudaharaaday ay si khalad ah u fahmeen mashruuca. I think the protesters are mentioning the urban plan and the expansion. waxaan u malaynayaa dibadbaxayaashu in ay ka hadleen qorshaha lagu ballaarinayo caasimada. si qalad ah ayay si u fahmeen qorshahaasi. qorshahan ma laha fikrad kaliya oo ku saabsan ballaarin. sababtuna waxa ay tahay ma aha mid suuragal ah in laga ballaariyo Addis Ababa in ka baxsan xuduudaha hadda ay leedahay iyo awoodeedaba. waxaana arrintaasi qayaxay sharciga. mana jirta baahi ah in la ballaariyo. And there is no need for expanding. Ethiopia waxay rajeynaysaa inay bulshadeeda gaarsiiso heerka nolosha dabaqada dhexe 10 sano soo socda. ballaarinta caasimada iyo in la dhiso kaabayaal dhaqaale oo cusub ayaana qayb ka ah mashaariicda lagu higsanayo hadafkan. hase yeeshee dadka u ololaya xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya inay tahay in kobaca uu la jaan qaado horumarinta dimuqraadiyadda.